xogaan maanta wado xasaasisana oo doonayo inaan idila wadaago waxa ka baqaya xafiisyadii aan soo dhageysan jiray in la iga xirto marka la dhawr ninkii odayga ahaa wixii loo sheegay ba xogaaga xashiisha qaahaba maqaaxidii buu xaabo uga dhigtay yeelkadeede waxa la yiri umul iyo nin weynise wuxuu og yihiin waxma sheegaan insha Allah taala xeerada gunteeda tagi meene dusha sare baan xogaa idinka taataabanaya odayaashii beesha dhulbaantay Muqdisho ku sugnaa iyo madaxdii qarabku si buuxda bay isu afkarteen abshireysta dawladda federaalku waxay ballan qaaday inay maamulkii khaatuma aqoonsan doonto warmeeliga si qorta maalmaha soo socda dawladda federaalku waxay magacaabi doontaa ergey gaar oo u qaabilsan SSC kaasoo ملف deegaanada intuu gacanta ku dhigo insha Allah taala ina kala shaqeyn doona sidii maamul goboleed aynu dhidibada ugu istaajin lahayn si sheer gareeya warkaas oo umada dhan si gaarsiya waxaan arkayay Siciid Cabdullaahi Dini oo maanta isagoo magaalada Boosaaso ka hadlaya leh Puntland mas'uuliyad baa ka saaran inay difaacdo habba xafiiska ugu sareeya ee dawladda federaalka cidii beesha daarood ku metisha marka mar hadii ra'iisul wasaare la jabsaday oo awoodiisii la marorsaday annaga difaaceena oo u jeedna oo u joogna yeelina meeno in xafiiskayagii la burburiyo waxaan isweydiiyay hadalkaasi ma xuma laakiin hadii uu Dani qofkii marka daarood ugu sareeyo uu difaacayo warnigii farmaajo ahaa shalay muxuu u difaaci waayay markii la lahaa Maxamed oo soo bax oo dad badan oo daarood ay aaminsan yihiin qabiil ahaanba ninka in lagu diidanaa oo lagu mucaaradayay واتي أوه لها إسقنا صبح محمد وعد وصبح ساعة إلى الدور شذا وريق قدام يلا تجينا أكيد كهربائي أو محاكو رهلاي الجلبة سوق دفتي وشينا عليه وقاعد سنة مقابل إنا سيشر قال صبرت فيسبوك إنا فلو صوتنا على وحي أركتي أو عقبتنا إنا غيبت كومنتيجا أكو عبرتين وحرب إنا إذين شجوا وضياشي بيشر البهانتة مجال المقدسة كسرنا halka ku tagay booqashada rasmiga ah kadib markii caasimada ka heleen dawladda federaalka inay la kulmeen madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii kulankii ugu dambeeyay shalay ilaa xalay waxay la lahaayeen ra'iisul wasaaraha markii horeeto xildhibaanada beesha oo dhan iyo ra'iisul wasaaraha iyo maxaa ku raada wasiirada beesha iyo iyaga is arkay markii dambe si gaar ah bay ra'iisul wasaaraha isu arkeen waxa wasiiradii iyo xildhibaanadii beesha daarood ee dawladda federaalka ku jiray ay ka marakaceen dawladda federaalka ama dawladda dhexe ee Soomaaliya inay intii karaankeeda ahayd dadkaas halka maaragtay duulaanku ku socdo ay garab istaagtay wixii ay tari kartana ay tartay iyadoo wax garasho ah aysan jirin xog badan ba odayaashii la wadaagay odayaashina maqsuud bay noqdeen insha Allah taala dadkoodana markay soo noqdaan iyaga sida wuxuu jiraan la wadaagi doono iyo wixii ay meesha kala soo kulmeen sidoo kale dawladda federaalku waxay sheegtay in dastuurku uu dhigayo dadkii markaas go'aansada inay maamul dhistaan inay xaq u leeyihiin oo aayahood ay ka tashan karaan cidna aan la jujuubi karin meel aysan rabin lagu khasbi karin waxa loo sheegay hadii dadka deegaankaas ay maamul soo dhistaan sidii maamuladii kale Soomaaliya la mid ahaa dawladda federaalku inay ku khasban tahay inay aqoonsato ayna diyaar u tahay laakiin dadka deegaanka looga baahan yahay inay dib isugu noqdaan shirweyne samaystaan maamul soo dhistaan maxaa ku sidii maamulada kale markaa ka bacdi Muqdisho ay la yimaadaan dhab halkaasna shaabada looga dhufan doono dawladda federaalku iyadoo muhiimad gaar ah gobolada siinaysa maalmaha soo socda waxay magacaabi doontaa ergey gaar ah oo u qaabilsan kaasoo ka shaqeyn doona maxaa ku raahday dadka deegaanka kala shaqeyn doona odayaasha sidii xaaladaha halka ka taagan loo maxaa ku raahday loo sulx bixin lahaa isla markaasna uu isugu xiri lahaa si dhow dawladda federaalka iyo dadka deegaanka waa waraad wanaagsan waana arki doontaan maalmaha soo socda xogo badan baan hayaa mar rabo inaan idin la wadaago waxaan diidayaa xafiisyada aan wax ka xiro insha Allah taala in la iga xirtaa diidayaa mar walba waxaan jecelahay inaan wax soo dhigayo war ku nool baan ahay hadii wixii aan ogahayba maqaaxida xaabo ugama dhigi karo xaasha wujuude iga sii sheer gareeya dad badan waxa laga yaabaa inay isdhahaan warshiino culay mana waalaya see suurtagal u tahay dawladda federaalku inay maamulkii khaatumo aqoonsato oo waliba gacan ku yeelato dhismihiisa iyadoo ay Puntland sayaan waxaan idin leeyahay caadifadu iyo idin qaadin Dani oo dudayna wariyuu idin duufsan dadka deegaanadaas mar walba dantu waxay ugu jirtaa
marka Puntland iyo dowladda federaalku ay iskhilaafsan yihiin inay khilaafka ka faa'iideysato oo dowladda federaalka markaas iyadu ay xagga maxaa ku iraahday uga dhawaato Puntland oo ay u gasho hadii Puntland iyo dowladda federaalku ay heshiis yihiin sidii dhici jirtay adiga marka cidiba kuma baahna Puntlandna weligeed ma ogola waa la ogyahay halka in maamul ka soo baxo marka fursad muhiim ah haysataan waa laga maarmaan in laga faa'iideysto iyadoo arinta caadifada iyo degdega laga saarayo shalay Puntland iyo dowladda federaalku markay heshiiska ahaayeen maxaa faa'iidi xafiiska gasho tii laga dabagelayo lahaa ka xirtooy cidna ma metelaan ha aqoonsaninoy berina hadday heshiyaan sidii baa dhacaysa shaki kuma jiro war taariikhdu war waa cashar war dib baa loo eegaa war wixii kugu dhacay waxa laga bartaa dadka aan siyaasadoodu fadhiin maxaa ku raahday maanta qabyaalada iyo waxa harti waxba naga maqal ugu khaldayo baan ka hadlayaa siyaasaddu asalkeedaba waxa la yiri waxay leedahay dan ee saaxiibtinimo joogto amale maanta dowladda federaalka waxa weey dana badan kaaga xiran nin banaan taagan oo isagu jagayro loo soo diiday ka duday yuu ku duufsan ka faa'iideyso fursadaada dadkaagan uga faa'iiday shalay Muuse la dagaalamayso ka timi dadka waxa u soo kaxaysay ma ahayn inaad dani u geysid waxay ahayd midnimo ummadda Soomaaliyeed iyo iyaga Muqdisho isku xirto maamul u samayso shalay hadda Somaliland ka soo baxday macnaheedu ma ahayn Puntland baan galeeyaa waxay ahayd maamul goboleed kuwa la dhigan ba halka ka soo saaraya kaasina wuxuu ku jiri karaa dowladda federaalka inuu aqoonsi ka helo maanta kugu dhowdahay war fursadda ka faa'iideysan ku leeyahay anigu munaafiqada ma aqaani hadalkuna bartiisaan dhiga madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni maanta waa hadlay boosaasu ka hadlay wuxuu yiri Puntland waajib baa wuxuu ka saaran yahay inay mar walba ilaaliso oo difaacdo xafiiska ugu sareeya hab cidi daarad ku metasha maanta Xamsa nugu metala wiil oo ra'iisul wasaare ah waa ayaan daro in ra'iisul wasaare oo soo taagan iyo madaxweynaha Jubbaland la jooga in maanta la yiri xafiiska ra'iisul wasaare hala baabiyo iyaga nooga jawaabi doono waxa u saxiixeen marka anagu waxaan u taaganahay difaaca xafiiska noogu sareeya yeelimeeno in la baabiyo waana ilaashan doonaa war Saciid dadkii meesha joogo dhan waa u sacabeeyeen waranu waa ninku garanayaan meesha u socotaan garanaya war Saciid hadaa daaro difaacayso kursiga ugu sareeya dowladda federaalka ee maalinta saamiga u helaan ku fadhiyaan hadaa ilaalinayso war ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ka qiimo badan maxaa farmaajo shalay inuu ilaalin weeydi nacala sheedaan ku yaale markii farmaajo lagu kacay oo dad badan la aaminsan yahay in xataa qabiilahaan iska diidanayeen isaga mucaaradayeen oo maxamed oo soo baxla lahaa warkii farmaajo ninkii cadawga u jabiyay iyo dadkii mucaarad ku ahaa war soo adiga ma waradayaasha Puntland kori hoos wax ma kugu sheegeen war ninkaas waa daarood war wuxuu xeeri war ma ka diiday war waatan marageeda adoo afkaaga ka qiranaya oo leh reer Puntland oo dhan waxay leeyihiin war ninka daarood wuxuu xeeri bal isdagayso madaxweyne kala leh farmaajo ay soo wacayo wuxuu yiri hawiye ii soo dhacay ma aragtay adigoo xataa ka xishoon waayay wixii gaarka ahaa ee madaxweynaha iyo adigoo ku wada hadasheen inaad dadka ka qariso waliba laga yaabo inaad nabanayso oo hadalada uusan madaxweynuhu ku oran isagoo beeniyayna ma arag isagoo waajitaana la yiri ma arag ninkaan afkaaban oo elebis kale oo hal dulmiyo ama maxaa ku iraahday hal laga wado iska mar walba xishoodaan ku ogaa bal waa kane war Saciid dhageyso Saciidow horta waxa la yiri nin hooyadii ka guuray sadohdii uma nagaado nin daarood kursigii madaxweynaha ku ilaalin waayay oo shalay markii farmaajo ku fadhiyay dagaalkii la ogaa la galay horta maanta anaga ra'iisul wasaare inuu noo ilaalinayo u maleeynayo dad badan oo ku difaacaya ba hadda waxay oran doonaan farmaajo kursigiisu u socdayo saasuu ula dagaalamayay waa iimaan xumo haddii walaalkii maalinta fadhiyo inuu ku ixtiraamo kula shaqeeyo isagana markiisa iyo madadiisa iyo maalintiisa sugo bay ahayd dadka waxaan idin sheegayaa marka hadduu shalay farmaajo kursiga ku qabsanayo kursiga uu muuqday de maantana ana xaqiiqada waxa weey idin sheegaye kursiga Xamsa u muuqda maantana sidii uu shalay farmaajo kursiga ugu haystay Xamsa ugu haystaa dan daaroodna ka shaqeyn mayo mid Puntland ka shaqeyn maye shalay kursiga u muuqday ba maantana u muuqda waxa leenahay Saciidow hankaagu ha dhaafo haba wiil in adeerka ku soo fadhiyo maanta hadaa ra'iisul wasaare maaragtay ku soo noqonayso ninkaaga madaxweyne u tartamay shalay ayaan daro weeye hore u socon ku leenahay kor u baxay dhaha meel sare ha arkeen
dowladda federaalka waxa arkay isagoo leh ما صحيح كران محاكو راضاي دستورك wax kama bedeli karaan Saciid Cabdullaahi Dine waxa la soconaa hadda inuu soo jeediyay oo golaha wasiirada mariyay oo baarlamaanka u gudbiyay in dastuurka Puntland wax laga bedelo la furo taariikhda markii ugu horeysay oo halka 3 urur ay ka qoran yihiin 5 xisbi laga dhigo adiguna dastuurka Puntland waxa leedahay waa furaya anoo danta Puntland eegaya kii Soomaaliya guudna waxa leedahay waa isku duubayaayo lama furi karo Saciid oo isqabadsi taasna taasaan ku leeyahay marka dadka caamada waxa uu sheekay shiina culay ninku yaqaana ku bartay weeye taariikhdana asalkeeda waa 10 waa in wax laga barto anagu shalaan ku baranay farmaajo haystay maanta xamsi haystaa hadba kursi wiil walaalka ku fadhiya ku muuqda dan guud uma socotid kursigaas u socotaa horimaanka Allah ku sugan leenahay qofka muuminka ana kul laba jeer laga wada qaniino shalay كرسي إن أذيرك أنت أسكلوا شيء أكو فريسة ويدي كنا وحكي بقى ساعة أسكلوا له ساعة يسول هذا أطور ور مركه هدوب إسكبر لعبة حتى إن أنا عارفين بقول صوبته شلب على الصوت هاجن ودونية وسيف فيك حرستي وحسن وسيلة أنا حق له وأتيله قلنا ضعفي برينا يقولون ضعفيه وحوي ضيع السوق عادي وعادي لكن كوب شعر سوق أما كو قنع أما كو قنع أفرت سنة حمس وافدية أنا أقول إلى سنة وإنه مثلا وكو قنعسن قرن كالصوماليين بعد عشان سوق حوضه قف يلا بق يعد قارنا حبك من قبل كرتو واسينا عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.